بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada aan idinkugu hayno waxa kamida in Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei. waa ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo wacad ku maray in ay beegsan doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo maraakiib oo ku soo dhawaada marinka Hormuz had noqdo mid ciidan ama mid ganacsi. militariga Israa'iil oo qirtay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray askartooda ku sugan koonfurta Lebanon. warbixin laga helay dhanka Mareykanka ayaa sheegaysa in Iran boqolkiiba 60 ay haysato gantaaladeeda, taasi oo ka duwan hadalladii ay sheegayeen Trump iyo xogayihiisa dagaalka oo ku faanay in cardadiqah laga dhigay awoodii ciidan ee Iran. Turkiga oo isha ku haya qorshe Imaaraadka u wado oo ku doonayo inuu ku wiiqo isbahaysiga oo la samaysanayo Masar. Israa'iil oo laga bilaabay olole xooggan oo ka dhan ah Netanyahu. hogaamiyaha Xisbullah oo soo bandhigay 5 shuruudood oo culus oo ku aadan xabajoojin dhexmarta Lebanon iyo Israa'iil. taliye sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran gaar ahaan qaybta Qudus oo safar qarsoodiyaha ku tagay dalka Ciraaq. haddaba muxuu ku aadan yahay safarkani? xog ayaan idinkaga haynaa. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idinkugu haynaa barnaamijka xulashada wararka. Turkiga waxa la sheegayaa inuu isha ku hayo Imaaraadka Carabta. arrintan waxay la xiriirtaa Imaaraadka oo doonaya inuu majaxaabiyo qorshe weyn oo Turkiga iyo Masaaridu ay wadaan oo ay ku samaysanayaan iskaashi dhanka militariga iyo weliba isbahaysi ciidan. hadda marka waxa lagu soo warramayaa xitaa gudaha Turkiga Imaaraadkuna ka bilaabay dhaqdhaqaaq lagu abuurayo tashwiish iyo shaki dadka Turkida iyo xitaa dhanka siyaasadda. sidoo kale dhanka Masaarida ayaa waxa la sheegayaa in gudaha Masarna Imaaraadka uu ka bilaabay dhaqdhaqaaqaasi bacdama labada wadan isku soo dhawaanayaan. arrinta waxa la sheegayaa Imaaraadka inuu u arko in Turkiga iyo Masar oo isbahaysta ay ka macno tahay loolan weyn oo soo foosaraya Imaaraadka. haddaba warbixin amuurtan laga qoray oo warbaahinta dalka Turkiga si weyn ay uga hadal hayso saacadihii la soo dhaafay haddii aynu eegno. warbixino dhanka diblomaasiyadda oo warbaahintu ay baahisay ayaa waxay muujinayaan in dowladda Turkiga ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyo isa soo taraya oo la rumaysan yahay inay ku hawlan yihiin inay weeqaan horumarka uu samaynayo xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Masar marxaladan xasaasiga ah. ila ku dhow xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ee AKP ayaa sheegaya in doodo gudaha ay ka socdaan dhanka Ankara, kuwaasi oo diiradda saaraya sidii looga falcelin lahaa ajenda la sheegay inuu ka imaanayo Imaaraadka, kaasoo isku dayaya isagoo adeegsanaya qaar ka mid ah warbaahinta iyo dhinacyo Turkiga in shaki la geliyo faa'iidada ay leedahay in la dhiso xiriir militari oo ballaaran oo Turkiga uu la yeesho Masar. warbixintu waxay tilmaamaysaa in dhaqdhaqaaqyo noocan ah lagu arkay 3 xisbi oo mucaarad ah oo Turkiya iyo warbaahintooda, kuwaasi oo duray arrinta caadiyeynta degdeg ah ee xiriirka Masar iyo Turkiga, isla markaasna soo jeedinaya in Ankara ay halis gelinayso xiriirkeeda maalgashi ee dalalka Khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyadoo u dhawaanaysa dhinaca nidaamka militari ee Masar. falanqayaal ka tirsan mucaaradka Turkiga ayaa arrintan ku tilmaamay calaamad walaac leh oo muujinaysa niyad jab laga qabo iskaashiga dhaqaale ee Turkiga iyo Khaliijka, iyadoo markaa la soo jeediyey in madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi uu cadaadis saarayo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka gaar ahaan arrimaha amniga ee la xiriira Iran, isagoo raadinaya inuu dhiso xulafo militari oo cusub. dhinaca kale ila ka tirsan Ankara ayaa waxay sheegayaan in Abu Dhabi ay cadaadis xooggan saarayso qaar ka mid ah madaxda iyo dadka saameynta leh ee Masar, iyadoo xitaa lagu hanjabayo in la joojin doono maalgashiyada Imaaraadku uu ka wado Masar haddii Qaahira ay ku biirto mashruuc militari oo istiraatiiji ah oo ay la samaysanayaan Turkidu oo ay Turkida la samaysanaysa Masar, kaas oo lagu xusay warbixino
dhowaan soo baxay arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo imaaraadka uu qabo walaac muuqda oo ku saabsan korarka xiriirka iyo wada shaqaynta u dhaxaysa madaxweyne Sisi iyo dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan si kastaba ahaatee ila Masriya ayaa sheegaya in aragtidan taban ama gaabiska ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada khaliijka aysan saameyn ku lahayn go'aamada istiraatiijiga ah ee Masar iyagoo ku adkaysanaya in Qaahira aysan aqbalayn wax xadidaad ah oo ku saabsan jihadeeda siyaasadeed iyo midda amni warbixintu waxay ku soo gabagaboobaysaa in qaar ka mid ah caasimadaha khaliijku ay aaminsan yihiin in Turkigu door taban oo ka ciyaaray arrimo hore gaar ahaan markii uu ku qanciyay hoggaanka Masar inaanay ciidamo u dirin khaliijka si ay uga hortagaan Iiraan intii lagu jiray colaadii dhawaan dhacday arrintu marka way u muuqataa horta Israa'iil lama xusin laakiin imaaraadka Israa'iil xiriir fiican buu leeyahay xiriirkan kobcaya ee Turkiga iyo Masar u dhaxayna wuxuu walaac ku hayaa Israa'iil marka imaaraadku madantiisu wata mise wuxuu wataa dan Israa'iil oo wuxuu doonaya inuu ka hortago ama kale ilaalinaya xiriirkan ay samaysanayaan Masar iyo Turkiga arrintu marka meel adag maraysa laakiin masaarida waxay muujinayaan madax banaani ilaa iyo hadda inkastoo xitaa loogu hanjabay in la joojin doono maalgashiga imaaraadku ka wado waddankaasi Masar arrinta waxa kale ku soo aadaysaa iyadoo wadamada khaliijka ay ka codsadeen Masar ciidamada u soo dirto si looga difaaco Iiraan laakiin Sisi wuxuu yiri dagaalkan heerkaas ma gaarin arrintan wuxuu yiri waxay u dhaxaysaa saldhigyada Mareykanka la duqeynayo iyo Iiraan adinka marka hawl idin taala maahan aniguna ciidamo soo diri karo xilligan laakiin waxa leeyahay arrintan waxa ka dambeeya Erdogan oo Sisi ka dhaadhiciyay inuu sar ciidamo u dirin wadamada khaliijka si Iiraan loo difaaco Sisi laftigiisa waxa laga yaabaa dantu inay u run sheegtay oo haddii ciidamo u diro wadamada khaliijka markaas Iiraan ay u arkayso inuu ku soo biiray dagaalka markaasna Masar gudaheeda xitaa la duqeyn karo marka Masar walaac ugu weyn ayada wuxuu ka saaran yahay dhanka Israa'iil iyo Ethiopia oo biyo xiranka dhisatay marka cadaawad kale ma doonayso uu isgaabiyay marka madaxweynaha Masar arrinta laakiin imaaraadku wuxuu ka dhigay waxa nagu diray ninkan Sisi la yiraahdo Erdogan anagu marka inaan ka shaqeynaa sidii aan iskaga horkeenin lahayn labadan dhinac oo xiriirkooda cusub ay samaysanayaan aan u carqaladayn lahayn imaaraadku iska dhaaf meel kale gudaha Turkiga ayuu ka dhex adeeganaya xisbiyada mucaaradka iyo warbaahintooda ayuu dhex galay mucaarad baa lagu furay warar baa lagu furay tashwiish ah ee xiriirka dhex maraya Masar iyo Turkiga arrinta marka waxay maraysaa meel adag wahagaag wixii soo kordha waynu arki doonaa arrimahaasi markan waxaynu eegaynaa dhanka Israa'iil haddii aysan dhicin doorasho degdeg ah laakiin waxaa la filayaa doorashada guud ee baarlamaanka in la qabto bisha Oktoobar waxaa bilowday durbaba isbahaysiyo laakiin hadda waa lagu biyo keenay Netanyahu waayo 3 nin oo muhiim ah ayaa waxay doonayaan inay dhistaan isbahaysi haddaba aynu eegno warbaahinta Israa'iil ay qortay oo la xiriirta arrimahani hagaag ra'iisul wasaarayaashii hore Naftali Bennett iyo Yair Lapid iyo taliyihii hore ee militariga Israa'iil Gadi Eisenkot ayaa waxay ku jiraan wadahadallo ay ku doonayaan inay ku dhistaan xisbi cusub oo wada jira oo lagu magacaabo New Israel sida uu wariyay telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay sida warbixintu sheegtay wakiilo ka socda 3 nin ayaa ka wada hadlaya inay sameystaan isxulafaysi ka hor doorashooyinka soo socda ee la qorsheeyay inay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadkan Eisenkot wuxuu hogaamiyaa xisbiga Yashar waxaana lagu soo waramayaa in markii ugu horeysay uu soo jeediyay isxulafaysi inay sameystaan isaga iyo 2 nin oo kale bishii January wuxuuna la hadlay Bennett iyo Lapid kuwaasi oo labaduba isku dayay in isaga ay ku soo daraan xisbiyadooda xisbiga Yashar iyo xisbiga kale ee Bennett 2026 bilii ugu dambeeyay si joogto ah ayaa waxa loo ogaaday ra'yi runtii la sameeyay inay yihiin kuwa xoogan oo ku jira xulafada mucaaradka iyadoo sahano la sameeyay ay muujinayaan inay noqon doonaan xisbiyada ugu waaweyn kadib xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu mid kasta ayaa waxa la filayaa inuu helo 16 kursi haddii doorasho la qabto maanta
sida lagu sheegay sahankii ugu dambeeyey ee ay samaysay Zaman iyo Israa'iil oo ah bogga afka Cibraaniga ee lala xiriiriyo wargeyska The Times of Israel. dhinaca kale xisbiga uu hogaamiyo Yair Lapid ee lagu magacaabo Yash Atid oo ah xisbiga hadda ugu weyn mucaaradka isla markaasna ah kan labaad ee ugu weyn baarlamaanka Israa'iil kuna leh 24 kursi ayaa hoos ugu dhici kara kaliya 5 kursi inuu helo sahankii ugu dambeeyay sida uu muujinayo taas oo ka sarreysa hal kursi oo kaliya xadka ugu yar ee xisbiyada loo baahan yahay inay ku soo galaan baarlamaanka oo ah 5 kursi haddii aad 5 kursi haysato waxaad noqon kartaa xisbi baarlamaanka soo gala si kastaba ha ahaatee haddii Eisenkot, Lapid iyo Bennett ay si wada jir ah u tartamaan liiskooda isku dhafan wuxuu heli karaa 38 kursi taas oo ka dhigaysa xisbiga ugu weyn ee baarlamaanka Israa'iil inkastoo aysan si weyn u bedeli doonin cabirka xulafada iska soo horjeeda sida sahanku muujinayo haddii ay helaan 38 kursi macnaheedu waxay tahay inay u baahan yihiin ugu yaraan 23 kale oo kursi oo xulafaysi ay kula noqdaan cid kale si dawlad ay u soo dhisaan waxaana la sheegayaa in isbahaysiga saddexda nin ay samaysanayaan hadda ay tahay arrin si weyn Netanyahu walaac ugu abuurtay isla wararka Israa'iil intayna ka bixin militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in askari ka mid ah ciidankooda la dilay 3 kalena lagu dhaawacay kadib markii qarax uu ku haleelay maalinimadii Jimcaha koonfurta Lebanon kadib markii xabajojinta Xisbullah lala galay ay dhaqan gashay askariga la dilay waxa lagu magacaabi jiray Barak Kalvon oo 48 jir ah oo ahaa sarkaal ka mid ah ciidamada kaydka kana tirsana guutada 226 ee baarashuudka gaar ahaan unuga 756 wuxuuna ka soo jeedaa ninkana deegaanka Aadi askarta ayaa baaritaan ku sameynayay dhismo ku yaala tuulada Chebain ee koonfurta Lebanon iyagoo raadinaya hub intii ay baaritaanka wadeen walxaha qarxa oo Xisbullah halkaas ay ku rakabtay ayaa ku qarxay askarta waxaana ku dhintay Kalfon isla markaasna waxa dhaawacmay 3 askari laba xaaladooda waa meel dhexe halka mid kalena dhaawiciisa la sheegay inuu yahay mid aad u culus sida lagu sheegay baaritaan hordhac oo ay sameeyeen ciidamada Israa'iil bamku ma ahayn baaliyiri mid meel fog laga hagayay faahfaahin dheeraad ah ayaa wali socota oo baaritaan la sameynaya askarta dhaawacantay ayaa diyaarada lagu daabulay وهجاك قضب كاس هالكاس أينو كجدبنا وحنا جد بينا عيدا كإيران كعنك إيران أو صوصاري ورا علوس أو مركب كستو كسر دوالة مركب هرموز أما حتى مراكيت كسر عن أجاس كير دقيقة إلا جبيه عيدا إيران أيوة كل واقعين جبيهم بإلا حري مركب هرموز حدا بحري قل كي دب وركر أيا كسر بحي عيدا ماذا إيران كعنك إيران وركن وحول لحريرة markab mari kara marayka hormuus inuu soo jirinba iska daaxatay inuu ka gudbee waxa leeyahay maraakiibta aagaas ku sugan mar dhaqaaq karaan xitaa intaan idin soo gudbin horta warbixinta bal aynu dhageysano codkan loo diray fariinta dhammaanba maraakiibta in Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Stepan Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Stepan Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. wuxuu sheegayaa mas'uulkan ama ninkan ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo fariinta la wadaagaya maraakiibta in markabkan in marinkan Hormuz gabihaan buu xiran yahay wuxuu sheegayaa in la furi doono oo kaliya amarka hogaamiyaha sare Imam Khamenei sidoo yiri dabcan waa mushtaba Khamenei wuxuu leeyahay lagu furi maayo fariimo ay soo qoraan amqiinta dabcan Trump inuu la jeeday u badanta inkastoo xitaa mas'uuliyiinta Iran qaar kamid ay sheegeen maalinimadii Jimcada in uu furan yahay marayka Hormuz laakiin waxa ka dambeeyay warkii shalay galab soo baxay oo gebi ahaanba la sheegay inuu xiran yahay marayka Hormuz waxa kaloo ciidamada lagu wargeliyay Iiraaniyiinta markab kasta oo dhaqdhaqaaq ah oo military horta in la beegsado
haddaba aynu eegna warbixintan la xiriirta wararkii ugu dambeeyey ee xaaladani ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa uga digay maraakiibta ku sugan aagga Marinka Hormuz inaysan dhaqaaqin oo aysan ka tegin meelaha ay joogaan iyagoo adkeeyay in maraakiibta jibisa amarka la beegsan doono dhinaca kale sarkaal Iiraaniya ayaa u sheegay warbaahinta in Tehran ay mudnaan siin doonto maraakiibta bixisa khidmadaha si ay uga gudbaan Marinka Hormuz sarkaalkan wuxuu yiri waxaan uga digaynaa dhammaan maraakiibta inaysan ka dhaqaaqin meelaha ay joogaan ee gacanka Faris iyo badda Oman waxaan ka digaynaa ku dhawaanshaha Marinka Hormuz waxaana loo tixgelin doonaa iskaashi lala yeelanayo cadowga maraakiibta jabisa waa la beegsan doonaa ayuu si cad u yiri warkan ka soo yaray ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri dhammaan maraakiibtu waa inay kaliya raacaan wararka ka imaanaya hay-adda rasmiga ee ciidamada badda hadallada Trump ee ku saabsan Marinka Hormuz wax qiimo ah ma leh waxay tilmaamtay warbixintu in jamcihii la ogolaaday maraakiibta aan militariga ahayn inay maraan Marinka Hormuz laakiin waxa la sheegay in wasiirada kale yiri cadowga uu jibiyay shuruudihii xabajoojinta isla markaasna Marinka gabi ahaanba la xiray taliya sare oo ka tirsan ciidanka badda ee IRGC ayaa sana wuxuu ku hanjabay in la beegsan doono maraakiib kasta oo aan ogolaansho ka haysan inay ka gudbaan Marinka Hormuz isla markaasna iska indhatira digniinaha taliya wuxuu uga digay Washington in tilaabo kasta oo ka dhana maraakiibta Iran looga jawaabi doono mid la mid ah haddii Trump uu daacad yahay isla markaasna uu run ka sheegayo in uu burburiyay ciidamadeena badda maxaa diidaya in maraakiibtiisa uu soo diro si ay u furaan Marinka Hormuz ayuu yiri sarkaalka telefishinka Iran ayaa sheegay in Marinka Hormuz si buuxda gacanta ay ugu hayaan ciidamada Iran isla markaasna aan la ogolayn in laga gudbo iyadoo wax ogolaansho aan laga haysan dhanka Iran isla wararkan telefishinka CNN ayaa ka soo xigtay sarkaal Iiraaniya in mudnaanta la siin doono maraakiibta sida dhaqso leh uga jawaaba habraacyada cusub ee Marinka Hormuz isla markaasna bixiya khidmadaha amniga badbaadada iyo adeegga deegaanka iyadoo dib loo dhigi doono tixgelinta maraakiibta aan lacagta bixin bayaanka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo Iran mar kale ay adkaysay xakamaynta marin biyoodka Hormuz isla markaasna sabtidii ay ku dhawaaqday in ay gabi ahaanba Marinka uu xiran yahay Tehran waxay sheegtay in tilaabadan ay u qaaday si ay uga jawaabto go'doominta sii socota ee Mareykanku ku hayo dekadaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay Iran uu leeyahay wada hadal aad u wanaagsan balse Tehran ay rabto in mar kale ay xirto Marinka Hormuz wuxuuna carabka ku adkeeyay in Iran aysan baad ka qaadi karin Mareykanka saacada ka hor Trump ayaa wuxuu muujiyay in war wanaagsan uu soo bixi doono isagoo aan bixin wax faahfaahina isla wararka Iran ayna ku sii soconay taliyaha ciidanka Quds ee hoostaga ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran Ismaaciil Khani ayaa booqasho ku jooga magaalada Baghdad si halkaasi wada hadallo ula yeesho mas'uuliyiinta waddankaasi gaar ahaan saameynta ka dhalatay dagaalkii bariga dhexe iyo inuu la kulmo mas'uuliyiin iyo hogaamiyaasha kooxaha hubaysan ee daacadda u ah Iran sida uu sheegay sarkaal Ciraaqi ah oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ee laga leeyahay Faransiiska tani waa booqashadii ugu horeysay ee dibadda ee Khani uu ku baxo tan iyo markii xabajoojinta labada toddobaad ay dhex martay Mareykanka iyo Iran bishan Abriil 8 Baghdad ayaa muddo sanadaha waxay la daaladacaysay sidii ay isugu dheelitiri lahayd xiriirka labada awoodood ee ugu saameynta badan siyaasadda gobolka waa Iran iyo Mareykanka Ciraaq kama badbaadin saameynta dagaalkan socday 40 maalmood waxaana la sheegayaa in kooxaha Iran ay taageerto inta badan ay weerar ku qaadayeen danaha Mareykanka ee gobolka iyo sidoo kale Israa'iil Khani ayaa waxa la sheegayaa in uu bilaabay in uu kulamo xiriir kala duwan la yeesho hogaamiyaasha xoogagga siyaasadda waxaana lagu soo waramayaa in uu yahay nin si weyn booqasho had iyo goor ugu taga waddanka Ciraaq Khani ayaa waxa uu bedelay hogaamiyihii hore ee ciidamada Quds ee IRGC hoostaga Qasim Soleimani kaasi oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ay ka geysteen bishii January 2020 waddanka Ciraaq
si kastaba haatee booqashadiisa ayaa waxaa la sheegayaa inay ahayd mid qarsoodiya oo aan horay loo sii shaacin. xagga Lubnaan haatan aynu eegno xogayaha guud ee xisbiga Xisbullah Naciim Qaasim ayaa soo bandhigay 5 shuruudood oo uu sheegayo in ay lagama maarmaan u yihiin marxaladda ugu dambaysa ee xabajoojinta Lubnaan, isagoo carabka ku adkeeyay in go'aamada siyaasadeed ay ka dhalanayaan natiijooyin ka jira goobta dagaalka. Qaasim wuxuu sheegay in xabajoojinta kumeel gaarka aysan hirgeli lahayn la'aanteed dagaalka ay wadaan kooxaha iska caabinta ee koonfurta waddanka ka socda, kuwaasi oo ku tilmaamay inay muujiyeen waxqabad sida uu yiri halyeynimo, inkastoo ay jireen buu yiri kala duwanaansho dhanka awoodda u dhaxaysa iska caabinta Israa'iil iyo Mareykanka. Wuxuu xusay in iimaanka, rabitaanka iyo awoodda ay ahaayeen buu yiri kuwa ugu muhiimsan ee xaqiijiyay guushan, isagoo ammaanay shacabka Lubnaan dhammaantood. Wuxuuna tilmaamay inay taageereen iska caabinta isla markaasna ay u adkaysteen cawaaqibka dagaalka uu ku reebay. haddaba maxay yihiin shuruudaha uu soo bandhigay ee 5 ah Naciim Qaasim? Wuxuu yiri qodobka koowaad waa in si buuxda loo joojiyaa weerarada ka dhanka Lubnaan, dhanka hawada, dhulka iyo baddaba. qodobka labaad in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka Lubnaan ee ay haysato ilaa iyo xadka caalamiga. qodobka saddexaad in la sii daayo maxaabiista Lubnaaniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israa'iil. 4 in dadka degan deegaanadoodii ay ka soo qaxeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala xuduudda dib ay ugu laabtaan deegaanadooda. qodobka shanaad in la bilaabo dib u dhiska dalka iyadoo la helayo taageero caalamiya iyo mid carbeed, isla markaasna mas'uuliyad qaran la qaato. ugu dambeyntii Naciim Qaasim wuxuu sheegay in Xisbullah ay diyaar u tahay in la shaqayso dowladda Lubnaan marxalad cusub oo ku dhisan midnimo qaran, kana hortagi karta khilaaf iyo faragelin dhanka dibadda ah, isagoo xusay in iska caabintu aysan jabin oo ay adkaysatay, isla markaasna iyadoo ay tahay buu yiri cidda ka dambaysa guushan, sida uu yiri kuna qasabtay Israa'iil inay qaadato xabad joojin. wahagaag intaana ka bixin bal markan aynu eegno war dhanka Mareykanka ku saabsan. Mareykanka inkastoo Trump iyo xogayihiisa dagaalka Pete Hegseth ay sheegayeen in la burburiyay awoodda gantaalada ee Iran, laakiin warbixin cusub oo xalay soo baxday haddii aynu eegno ayaa waxaa la sheegayaa wargeyska New York Times inuu ka soo xigtay saraakiil Mareykan ah oo sheegay in Iran ay weli haysato in ka badan 60% gantaaladeeda iyo saldhigyadeeda, taasi u suurtageli kartaa la yiri inay carqalad ku noqoto gebi ahaanba maraakiibta ka gooshaysa Marinka Hormuz, isla markaasna dagaal xitaa ay qaadi karto. hadda waxa laga hadlayaa 60%. macnaheedu waxa weeye haddii Iran ay haysatay 1,000 gantaal, 600 ayay hadda haysataa. haddii ay haysatay 10,000, 60,000 bay haysataa. marka 50% xitaa ma aysan isticmaalin. Mareykankana waa la socona qaylada ka dhamaatay Israa'iil, hubkii baa nuguda yaraaday. Mareykanka muxuu gaaray xitaa 400 oo gantaalada Tomahawk oo laga iibin lahaa Japan ayaa la joojiyay. waxa anaga u baahan. dhibaatada kale waxay tahay baa la yiri gantaalada kale ee Mareykanku isticmaalay iyo duqeymaha uu isticmaalayay, hadda waxa la yiri shirkadihii waxa la amray inay soo saaraan hub fara badan, laakiin goormuu diyaar garoobaya 2028. waana hub qaaliya. gantaalkii wuxuu ku fadhiyaa $2 milyan, laakiin Iiraaniyiintu maxay isticmaaleen gantaalo 200,000, 50,000 diyaarado drone ku fadhiya oo dhaqaale badan uusan ku baxayn. halkaas marka way meesha lagu kala haraya ayaa la leeyahay. Trump marka waxa hortaal xujo culus. Iiraan waxay leedahay haddii aad doonaysid inaan furno Marinka Hormuz, adiguna waa inaad qaadaa xanibaadda dhanka badaha ee dekedaha Iiraan la saaray. haddii kale waa la isla xirmi doonaa arrinta. wahagaag waynu arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaasi. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo.